Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran. qadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda Puntland Engineer Maxamuud Xaaji Saalax oo aan faahfaahin ka weydiinayo markab haatan jooga xeebta degmada Bareeda raasiga gacanka Gardafu arrimaha wararka duwan oo markaas ka soo baxaya ayaa rabaa in uu faahfaahin ka bixiyo wasiirka وستر كوسو دو وكالة بوتلاند بوست بالفاهفاهين نغسي مركبكان iyo arrimiis بسم الله الرحمن الرحيم بعض الصحابة aad baan idinkaga mahadcelinaya xiriirka la soo sameeyeen waxaan rabaa inaan ifiyo wax ka sheego in baraha bulshada in lagu qoray markab lagu afduubtay oo ay burcadbadeed afduubteen deegaanada Gardafuul waxaan leeyahay waan rabaa inaan arrintaasi aan cadeeyo inaysan waxba ka jirin dhammaan haddii noqon lahayd ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo caalamka intiisa kaleba waxaan markaa oranayaa markabkaasi waxa weeyaan markay ahayd afartii galiga dambe ee subaxdii 4 am ayaa oo habeen hore ahayd baa ciidan lix ah oo ka socda Gardafuul ay tageen markabkaasi si ay u hubiyaan sababta keentana waxa weeyaa shaki badan oo jiray oo markabkaasi 3 maalmood oo ku noqonayay iyadoo loo arkay in shaki badan markabka ku jiro in la soo yaqiinsadaan ay noqotay in loo diro ciidanka Gardafuul waa u tageen markabkii waxa la xaqiiqsaday markabkaasi inuusan haba yaraatee sidii lagu toonsanaa aysan noqon markabkaasi waxaa saarnaa shaqaale ilaa iyo 20 ah oo runtii markaasina waxa weeyaan markab laga leeyahay Panama kuna sii socday xamar wuxuuna ka yimid imaaraadku ka yimid wuxuuna waday shidaal marka arrinta marka la xaqiiqsaday hadda aan kula hadlayo cid Soomaali ah ama cid maaragtay markabkaas xajiraysa inaba hayraatay ma jirto marka meesha soo jooga inuu dhaqaaqana saacadaha soo socda haddii la fix gareeyo waa laga yaabaa waxaanu meeshaasi marsada u soo galayna waxay ahayd cilad sida ay inoo sheegeen marka intaasaan ku sheegayaa xaaladiisana waa laga warqabaa waana xor weeye meesha doonoo aadi karaa mar haddii maaragtay la xaqiijiyey markabka inuusan ahayn markabka waxyaabaha looga shakisan yahay sida waxyaabaha looga shakisan yahay markabka maxay ahayn marka waxaa kamid ah illegal fishingka kamid ah inuu wasaqeyn ku wasaqeynayo maxaa la yidhahdaa badaha arrintan environmental issue-geeda waxaasoo dhan baa looga shakisanaa laakiin waxa ay noqotay markabku wuxuu noqday markab cargo ah oo laga leeyahay Panama kala soo tegay imaaraadka kuna sii socda magaalada Muqdisho magaca markabkana waxaa la yidhahdaa Ocean 11 waxaana saarnaa 20 qof oo shaqaale ah waa gartay wasiir waxaa jirta in ciidamadii meesha tagay la sheegay inay qoryo ka dejiyeen marka qoryahaasi ma la soo celiyay waa runtaa weeye waxay ka dejiyeen 3 qori weeye 3 qori haddeer waan la hadlay iyadu laftirkoodu waad garanaysaa ciidan markab koray waxa ay samayn karaan inaba ha yaraatee laakiin qoryihii waxa weeye saacadaha soo socda ayay dhamaanaysaa 3 qori in loo keeno oo la siiyo marka hore maxaa ku kalifay marka inay ciidamadu la degaan qoryaha bali waa ka garan kartaa xaqiiqdii ciidan meel lagu sii deeyay waxa ay mudan karaan iyo waxa ay samayn karaan dhinacaasi waxay ka mid tahay dhinaca dishibliinka iyadana xukuumadda kala xisaabtami doonta ciidankii sidaa sameeyey laakiin ma aha innaba ha yaraatee wax la xiriira burcadbadeed iyo wax u dhowba